xukuumad tayo leh iyadoo aan idin kala tashan doono muddo 3 maalmood gudahooda. Prime Minister ahaan igama casiri karo xilka Prime Minister igama qaadi karo awood uma laha dastuurkii buu ku tuntay baarlamaanka u taalaa anigu ma faragelinayo kaliya aniga waxaan ku ekeysanayaa inaanu asaga xil iga qaadi karin aniga baarlamaanka xil iga qaadi kara dastuurkay ku caddahay qodobka uu cuskanayo waa beentis oo meesha oo asaga soo xigtay ma samayn kara awoodna kumala qorno go-aanada madaxweynaha gaara maanta oo ah xilka qaadista Prime Minister Nuur Xasan Xuseen oo madaxweynuhu ku dhawaaqay waa ka xumahay madaxweynuhu inuu kulli tallaabo noocaasa oo qaado oo sharci darraa oo dastuur ka soo horjeeda sida la og yahayna meesha nidaam baa jiro axdi baa jiro ku meel gaara oo loo cuskado tallaabooyinka ku saabsan muxuu ahay xilka qaadista iyo xuludhiibista xukuumadda iyo madaxdeeda iyo howlwadeenadeedaba marka madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf waa asaa magacaabay oo xilka Prime Minister nimada asaga ayaa ii magacaabay isagoo cuskanaya awoodda dastuurka oo u siinayo in uu Prime Minister magacaabi karo Prime Ministerka uu magacaabana wuxuu ansixin ka rabaa baarlamaanka marka waa magacaabay laakiin ansixinta baarlamaanka kadib madaxweynaha aniga ama Prime Minister xil kama qaadi kariyo uu magacaabi karaa laakiin xilka qaadista waxaa iskale baarlamaanka wallahi horta madaxweynuhu wixii isaga ay la noqoto oo qalada oo arko oo aniga intuu isoo gudbiyo ay dhacdo in aanan markaas waxba ka qabanin ama aan sidoo rabay yeelin isaga baarlamaanka ayaa awoodda iskale controlka iyo waxa dastuurka ku yaala awoodda yani looga qaadayo xilka xukuumad baarlamaanka iskale qodobka 11 oo cuskaday madaxweynaha oo ah in dhaqangelintii federal systemka iyo dastuurkii wax qabashadiisii inay xukuumadeyda ku fashilantay muddo 1 sano oo laga rabo ay furi weysay arrinta ayada horta bal marka hore sanadkii ma la gaarinba xukuumadda 10 Janaayo ayaa la ansixiyay marka waxaan laga hadlaynaa waa xukuumaddii 10 Janaayo la ansixiyay sanad wuxuu dhamaanayaa 10 Janaayo soo socota 9 baan ilaahdo markaasna sida qodobka 10aad ee axda ku meel gaarka uu dhigayo waxa waaye xukuumadda hore waa tii aniga iga horeysay waxay qabtay 2 sano iyo bar inay ku dhaqan geliso arrimaha federaalka muxuu ahay haddii ay suuragal noqon weysana inay weydiisato baarlamaanka kalsooni in la siiyo ay kusii wado muxuu ahay waajibaadka saaran hawsha macnaha aniga xukuumadeyda ma lahayn 2 sano iyo bar waxay leedahay 1 sano haddii ay ku hirgeli weyso inay baarlamaanka kalsooni weydiisato haddii kalsoonida la siiyana haddii ay hawsha sii wadato haddii kalsoonida loo diidana hadda markaas xukuumad kale la dhiso wallahi waxaan ka leeyahay madaxweynaha wuxuu rabo waa iska sheegi karaa isaga laakiin runtii waxqabad la-aan marka ay tahay ay timaado waa ka jiraan sababtana waxa waaye madaxweynaha isaga ayaa curyaamiyey xukuumaddii isaga oo ka jawaabaya gobernatore xil laga qaaday oo isaga isku xirnaayeen ayuu muxuu ahay diiday go-aankii golaha wasiirada markaasoo golaha wasiirada xubnahoodiina ku dhiirigeliyo culays ku saaray inay iscasilaan waxaa casilaada ka yeelay 10 wasiir iyo 3 wasiir ku xigeen gurigiisoo ku shirinayay marka intii kale waa ka diiday kadib dabcan muddo kadib baarlamaankii ayaa kala noqday kalsoonidii muxuu ahay 10 iyo 3 xubnood
oo isaga yani dartiis isu yani codsigiisa awgeed isu casiray iyagii marka xilkii waxaa yani kalsoonida waxaa kala noqday baarlamaankii kadibna shir madaxeedkii igad baarlamaankii buu ku raacay markii la tegay calaa kulli xaal ilaa hadda muddadii 29 July ayay ahayd madaxweynuhu markuu yani ku sameeyey filalka noocaasa kadibna waxaa dhacday dabcan intaas waa jiitamaysay xukuumaddii in lasoo buuxiyo oo dadkii xubnihii baarlamaanka eriyey bedelkoodii lasoo buuxiyo oo ansixiyena waa diiday ilaa hadday soo jiitamaysay haddee xukuumad inay xukuumad shaqayso jirto kasoo horjeedaa waa madaxweyne dawladii oo madaxdu ahay la dagaalamayo oo ridaaya horena dabeecadaas waa lagu ogaayo waa la isla ogaay haddana tii unboo wataa marka waxa dhan oo ujeeda oo hadda waxaan u sameynayana waa dib u heshiisiintaas ummadda Soomaaliyeed dantu ah inaysan dhaqan gelin anigu tallaabada aan qaadayo waa caddahay waxaan leeyahay hadda adiga ku sheego hayaa waxaan leeyahay bal marka hore madaxweynaha aniga prime minister ahaan igama casiri karo xilka prime minister igama qaadi karo awood uma laha dastuurkii buu ku tuntay kutumashada dastuurka tallaabo ka qaadista aniga malihi baarlamaanka ayaa iskale baarlamaankay u taalaa anigu ma faragelinayo kaliya aniga waxaan ku ekeysanayaa inaanu isaga xil iga qaadi karin aniga baarlamaanka xil iga qaadi kara dastuurkay ku caddahay qodobka uu iskanayo waa beentiis oo meesha oo isaga soo xigtay ma samayn kara awoodna kumala qorna marka aniga intaasaan leeyahay waxna kama jiraan warqada uu qoray hadalka uu sii daayay waa waxaan waxba ka jirin xukuumadda aan madaxdu ahayn way shaqaynaysaa way soconaysaa qaranka inuu badbaado ayaan rabnaa dib u heshiisiinta badbaado dhibaatana aysan dalkan ka dhicin isagana wuxuu rabaa dhibaato inay dalkan ka dhacdo mushkilad timaado dagaal sokeeya dhaco yani maaragtay balaayo iyo mushkilad iyo dab holcow rabaa laakiin anaga taas ma aadayno